waxaan doonaynaa maanta inaan idinla wadaagno arrin Soomaaliya ka dhacday oo intiina badan aad wada ogtiin maxaa la yiri ma taqaanaa war xumi dugsi ma fadhiyo kulli wada ogtiin tartankii gobolada waa xagga xumaynta gabdhaha ku xadgudubka waxa la yiraahdaa international girl abusing ba Soomaaliya ka dhacay 18 gobol waxa isu soo baxay laba gobol ba finalkii isu soo haray waa gobolka Galgaduud iyo gobolka Mudug markii ugu dambeysay waxa ku guuleysatay degmada Gaalkacyo kadib markii ay dhacday maxaa dhacay ma taqaan waxa dhacday gabadh daayar oo 12 jirta ayaa qudda laga jaray waa la farxumeeyay quddana waa laga jaray meydkeediina waxa la soo dhigay gurigooda agtooda waa maqal foofkeeda Soomaad garanin kadib maxaa dhacay ma taqaanaa dadka reer Mudug furkay xooreen oo way arinta ka xumaadeen iyagoo dhagaxaan faraqa ku gurtay waa dhagax la garan waayay meesha loo tuurayo arintaas oo dhammaan gilgishay dadka wax garadka ah all over the world and all over Soomaaliya waayahay dadkii marka arinta ka cadaysnaa ee mudaharaadayay bal waa kuwan hadda ila eed Soomaalidan garanin waxayna leeyihiin ilaahu wada aqliga beeline annagu waxaanu ka joogi laanahay ragii oo ragga eeda dusha laga saaraya Soomaad garan hadaba ragiyow dhaka weynayaal gabdhihii wayna eedeynayaan waxa isku difaacaysaa dastuurka qodobkiisa 17 islaash qaram wuxuu sheegayaa in gabdhaha laga wareego hadaan waa dulmanahay door hadaan lahay waa rafaadsanahay door hadaan lahay waa dul ma socon karno oo gaari ma raaci karno oo ma lugayn karno oo meel aad nama naqaano waxa ka baqaynaa wiilashayagi waxa ka baqaynaa nimankii garabka noo aha waxa ka baqaynaa nimankii difaaci lahaa waanu dulmanahay 24 saac nolol kuma jirno waa dulmanahay hadii raggu mas'uuliyad sheeganayaan oo ay awood sheeg waxay ka hadlaan maxaa la qabtay hormar annagii ba dulman amni ma jiro hadda waxa la maray awal waxay ahayd in Facebook-yada la soo dhigo haddana waxa la maray in la dilo waxaan halkan isugu soo baxnay maanta dhibaatadii loo geystay gabadhii yarta ahayd ee Caaisho runtii gabdho badan baa loo geystay dhibaatooyinkaas ma ahan Caaisho kaliya waxa sidaas sameynayana waa dhalinyaro iyo mataqaanaa rag dhibaatooyinka keenaya waxa dhibka naga qaban karana waa rag waxaan leenahay haloo kaco sida la isku dhaamo halkan waxaan u imid inaan dareenkayga ku muujiyo walaashay Caaisho Ilyas oo habeen hore la ugu geysay kufsi foolxun iyo dil la isugu daray waxaan leeyahay maanta hadaan laga dhiidin oo shacabku aysan kicin waxaan leeyahay dareenkeena annaga ay bariin ugu dhici kartaa kaalinta labaad waxa gashay degmada aan ilaahay waa dhuusamareeb waa gobolka Galgaduud kadib markay iyaguna gabadh yar ay afka iska mariyeen kadibna maxkamad nimankii waa la soo qabqabtay maxkamadda la hor istaajiyay laakiin dalka dhan waxa ka jira wax la isafgarad ma maxkamadii baa marka isafgarad lagu sameeyay nimankii baa waxa lagu leeyahay waa la canaantay waxa la yiraahdo wariyaa inuu hebelow maalin dambe hadda arintaas kala sameeyso hooyada Allah ka qaado darbaaxan kaala daalayna waa la iska garanayaa waa isafgarad Soomaad garan bilooyin baa lagu xukumaa lagu leeyahay waraf xasan bidaar wuxuu qirtay gabadhaas inuu isticmaalay laakiin ay ahaayeen heshiis maadaama uu niyar yahay oo bikri ah oo hadda ka hor guur soo marin lagu xukumay xuduud ah in lagu dhufto 100 jeedal waxa kale oo uu qirtay inuu sameeyay kaamara ka duubay gabadhaas duubitaankaas waxa lagu xukumay 6 bilood oo tacsiir ah waxa ku xiga ninka la yiraahdo Sadiq Shigshigow waxaasna lagu xukumay intoo kale maadaamadii oo qirtay gabadhaas in uu ku sameeyay isticmaal zina ah kana dhaartay kii qasabka ahay kana uu qiran yahay laakiin isku soo wada duube waxa lagu leeyahay wararka qaar sheegayaan waa wararka aanu ka helayno ila badan oo xagga wararka ah Soomaalidan garanin magaalada la yiraahdo Samareeb waa Galgaduude wayba dhaantaaba meesha lagu leeyahay Galmudug waa Gaalkacyo oo maxay ku dhaantaa de Gaalkacyo yaaba hayaba bilooyin xataa lama hayo xataa haba la canaantay Soomaad garan waxay leedahay dhuu Samareeb aniga dadka ugu roon anigaaba wax canaantay arbal wax canaantay un keena dhuu Samareebay thank you very much annaguna afka qalaad ku leenahay halka Soomaad garan Gaalkacyo soo hadhay Gaalkacyo waa lagu soo socdaa dhaka weynayde haddaad gabdhaha marka inta waxa lagu sameeyo aad aayarun luuqyada kala galeysaan waa la soo imanayaa Soomaali dhexdeedana wax kuma kala qarsoomaan mahmaahina waxay oran jirtay xagala geel wax gunti la galiyo ka weyn www.dhakaweyna.com